xusuusaha kubadda cagta waa kuwo aan baabi'in oo aan ka bixin maskaxda taageerayaasha kubadda cagta. Waxaa jira dhowr xusuuso oo kubadda cagta ah oo ay adag tahay in la hilmaamo. waxay isugu jiraan farxado iyo musiibooyin la soo darsa kooxaha iyo xidigaha ku lugta leh kubadda cagta. haddaba maxay ahayd musiibadii ka dhacday garoonka Heysel ee dhaca cariga Belgiumka, halkaas oo ay ku wada ciyaarayeen kooxaha Juventus iyo naadiga Liverpool? intaanan muuqaalkaasi gudagelin, haddii aad xiisaynaysa inaad daawato muuqaalkan, waxaan si weyn kaaga codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto si muuqaalku u yeesho daawasho badan, una sheergarey asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. waad ku mahadsan tahay la socodkaaga. kii May sanadii 1985 oo hadda laga joogo 35 sano, Heysel Stadium oo ku yaala magaalada Brussels ee cariga Belgium waxa uu martigeliyay kulan kubadeed oo ay ciyaaristiisu ka horeysay musiibo ay dad badani ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. dheesha musiibada sababtu waxay ahayd kulan dhamaadka European Cup oo ay wada ciyaarayeen kooxaha Liverpool oo difaacanaysa tartanka European Cup ee Juventus oo ahayd kooxdii ugu xoogganeyd Talyaaniga waqtigaasi, isla markaana ku qalabaysneyd jokerkii reer Faranse Michel Platini iyo qaar ka mid ah xidigihii ugu saameynta badnaa xulka qaranka dalka Talyaaniga. yeelkeede xusuustan murugada leh ee dhimashada taageerayaasha kooxaha Liverpool iyo Juventus ayaa lagu xasuusan doonaa. aynu markan u gudagalno waxa garoonka dhexdiisa ka dhacay. sida la soo wariyo, saacad ka hor intaysan ciyaartu bilaabanayay mashaqadu dhacday. ilaa iyo hadda lama oga waxa diriirta keenay, laakiin sida la sheego waxa ay ka bilaabatay laba taageere oo midkood uu ahaa Liverpool, kan kalena uu taageero u ahaa kooxda Talyaaniga ah ee Juventus, iyadoo aan xisaabta laga saari karin in dadkii horiyo colaadaasi ay badi ahaayeen taageerayaasha kooxda Liverpool ee ka dhisan cariga Ingiriiska. musiibada ayaa siyaaday, taageerayaasha ayaa isdhexgalay, isna gacan qaaday, weliba si xamaasadaysan, isla markaana dahafuray musiibadan ay dadka badani ay ku dhinteen. dhiig badan ayaa daatay, booliskuna ma xakamayn karin waxaa halkaasi ka socday. saraakiisha amniga ee garoonkana waxay ku guuldaraysteen daminta rabshada. isqabqabsiga taageerayaashana iyo dagaalkoodana wuxuu u muuqday sida inay diriirayaan waddamada Talyaaniga iyo Ingiriiska. sida ku qoran xogaha musiibadan, dadka dhaawacma ay tiradoodu gaaraysa 600, halka kuwa naftooda ku waayay musiibadan foosha xun ay gaarayeen 39 ruux. 39ka ruux ee dhintay, 32 ka mid ah waxay u dhasheen waddanka Talyaaniga, 2 ka mid ah waxay ahaayeen Faransiis, halka 4 kalena ay ahaayeen kuwa u dhashay waddanka Belgium oo ay musiibaduba ka dhacday. waxaana tirada 39ka ruuxa dhammaystiray taageero u dhashay waqooyiga Ireland, kaasi oo ku dhintay musiibadii garoonkii Heysel ee cariga Belgiumka. musiibada inteeda ugu badan waxa ay gaartay kooxda lagu neenaaso La Fecchia Signore ee ka dhisan gobolka Piedmont cariga Talyaaniga ee Juventus. garoonka ciyaaraha ee Heysel uu qaadkeedu yahay in ka badan 50,000 oo taageerayaal ah. waxaa ku sugnaa taageerayaal badan kuwaasoo da'doodu ay u dhaxaysay sida la qiyaasay 11 ilaa 60 sano, iyadoo la heli karay dad kale oo da'daasi dhaafsiisan. dadkii ugu da'da yaraa ee ku dhintay garoonkan waxaa ka mid ahaa Andrea oo 11 jir ah, Giuseppe Conte oo 17 jir ah, halka Alberto Guarini uu dabaaldegaya habeenkaasi dhalashadiisii 21aad, taasi oo xitaa xafladeeda la diyaariyey laguna ballansanaa in keegeeda la jaro kadib markay soo dhammaato ciyaarta Juventus iyo weliba naadiga Liverpool. halka dadkii ugu da'da weynaa ee gigadaasi ku dhintay laga xusi karo Bruno Pali, Lamdini iyo Benito Beslato, kuwaas oo ay xoguhu sheegayaan inay da'doodu gaarayso 50 sano, ayna ka mid noqdeen dadkii ku qurbaxay dhacdadii Heysel. Juventus ayaa carada xanaaqa dhimashada taageerayaashaasi isaga reebtay oo ku ciqaabtay kooxda Liverpool guuldarro 1 gool iyo eber ah kadib gool caaqibo lahaa uu u dhaliyey xidigii ugu wanaagsanaa jiilkaasi ee Michel Platini. kadib musiibada, 14 ka mid ah taageerayaasha Liverpool ayaa jeelka lagu riday, 3 sano oo xabsi ah ayaana garka loo geliyey. Heysel Stadium oo ah garoonka aynu ka hadlayno waxaa la daahfuray 1946, waxaana uu martigeliyey in ka badan 6 kulan oo heerkeedu uu yahay final ka hor dhacdadan taariikhiga ah.
Hazel Stadium musiibadaasi darteed waxa uu ka caansan yahay garoomo badan oo kubadda cagta lagu ciyaaro waxaana uu caannimadaasi ku helay musiibada ka dhex dhacday. dhacdadan awgeed ayaa kooxaha reer England looga ganaaxay 5 sano inay ka qayb galaan dhammaan tartamada ay UEFA qabato, halka ganaaxa Liverpool uu gaarsiisanaa 6 sano. waxaana maalinka ganaaxaasi iyo musiibadaba ay ku tilmaameen taageerayaasha Reds maalin mugdi iyo taariikh xumo ah. kooxaha Juventus iyo Liverpool oo aan muddo isaga hor iman kulan Champions League ayaa waxay wada kulmeen sanadii 2005 markaasoo ay ku wada ciyaareen gegada Anfield kulan heerkiisu yahay quarter final. waxaana si wada jira loo xasuustay habeenkaasi dhacdadii weyneed iyo musiibadii ka dhacday gegada Hazel. dhacdada iyo musiibadii Hazel waa mid ku dhigan buugga madow ee taariikhda kooxda Liverpool iyo guud ahaanba kubadda cagta caalamka. dabadaawade intaad warbixintan daawanaysay ma jiraan waxyaabo kaa yaabiyey oo aad ku aragtay? kubadda cagtuna ma tahay ciyaar ay dhimasho ka dhalan karto? haddii aad warbixintan daawatay waxaan ku xasuusinaynaa inaad like saarto una sheergarayso asxaabtaada si aan u helno saaxiibo adiga oo kale ah. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafiinho. aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.